dadkani danyarta ee ku jiray xirada barakacayaasha ee barra dheer ee duleedka degmada Caabudwaaq ayaa cabasho ka xubno ka tirsan maamulka degmada oo ay sheegeen in musuqmaasuq ay ku sameeyeen kaarar u soo baxay waxayna dadkani fariin u direen wasaaradaha iyo hay'adaha kala duwan ee ay qusayso arrimaha barakacayaasha. halkan waxa weeyaan IDP kam barra dheer waxa halkan isugu yimid dhammaan dadkii deganaa halkan in badanna halkan ay ku noolaayeen cabashana ka dhibaatooyin badan oo lagu sameeyo sidaa darteed waxay ka cabanayaan maamulka degmada ee Caabudwaaq oo ugu horeeyo gudoomiyaha degmada oo ku xigo gudoomiyaha arrimaha bulshada oo ay ku xigaan dhammaan waxa la shaqeeya ayay ka cabanayaan sidaa darteed waxay uga cabanayaan xuquuq allaale xuquuqdii u soo baxda waxa hor istaaga oo isku hortaag isku sameeya gudoomiyaha degmada Mahad Cumar sidaas darteed waxay uga cabanayaan golaha guurtida ee degmada Caabudwaaq waxay uga cabanayaan maamulka state-ka galmudug madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiirada sidaas darteed waxa weeyaan wax kasta oo soo baxa kaamkaas waxa isku dayay inuu hor istaago oo isku dayay oo in badan hor taagnaa gudoomiyaha degmada Caabudwaaq waxaan aad iyo aad aanu u faraynaa arinta foosha xun oo dadka barakacayaasha oo lagu sameeyo 5 sanadood dibna loo geysanayo in loo fiirsado arinta gudina loo soo diro hay'aduhu ay arkaan caalamku uu arko golaha wasiirada ee galmudug ay arkaan ayaanu ka codsanaynaa dhibaatada inta leeg ninka sameynaya inayna ka qabtaan maamulka degmada uriyaan baan leenahay indhoolaan leenahay shay baan leenahay saqiir baan leenahay mid cayraan leenahay kaam dhan oo meel degan baan nahay 5 sano cunqabatun waayay waa keena kaamka wax kasta waa u sameynay waxaanu ka codsanaynaa dawladda federaalka iyo dawladda galmudug madaxweynaha Cabdi Qaariye Qoorqoor waxaan ka codsanaynaa si degdeg arintaas in la kaga soo gaaro anku waxaan nahay qaxootiga barra dheer oo barakacayaalka 5 sano halka degan waa xaqirana waxaan xaqiray gudoomiyaha Caabudwaaq iyo wixii la halmaala waxaanu u codsanaynaa dawladda iyo hay'adaha samafalkaana noogu soo dhiibeen asaga dib u qaatay asaga noo diiday hanjabaadna waa noogu daray waxaan hay'adaha samafalka iyo dawladda iyo wax walba ka codsanaynaa in ay si fiican indha dheer noo arkaan oo naga qabtaan ummadana dulmiyaysa amkaas waxa weeye 5 sano 6 sano waxaanu deganahay meeshaas barakacaha xuquuqdii waxa weeye noo soo baxda oo kaamka u soo baxda ninkaas waxa weeye naga xaqdiya asaga waxaan ku yiraahdaa kaamkaas ma leh magacyo oo dhoodhoobay iyo waxaan ku iri dad waxa weeye degmada Caabudwaaq u jooga asaga ayuu siiya xuquuqda noo soo baxda waxaan u cabaranaa waxa weeye ugu horeyn maamulka galmudug madaxweynaha waxa weeye galmudug ku-xigeenkiisa iyo golaha wasiirada iyo waxaan ku iri odayaasha waxaan ku iri waxa weeye guurtida degmada Caabudwaaq in ay si degdeg ah cabashadeedaas uga soo waxa weeye jawaabaan ilaahay baa waxa weeye cabashada ama waxa weeye baahida waxa weeye dadweynaha ilaahay baa waxa weeye ka fayn kara laakiin inay si degdeg ah wax uga qabtaan waxa ku xiga waxa weeye hay'adaha maxalliga ama waxa weeye dawladda ha ahaadeen ama waxa weeye international ha ahaadeen in ay waxa weeye baahida dadka barakacayaasha si degdeg ah ee la xaqdiyay 5 sano in ay si degdeg ah uga soo jawaabaan Saciid Cabdi Maxamed wararka TV-ga Universal Caabudwaaq.